soo dhacmara war magaala guuraysa ayaa maqalna markaa waa gartay ummadii banaankii u soo baxnay wixii indhaha bag ku niri waa dumay tuulada waxay ka haastaan dhinaca oo raacu dhaca oo galbeedka ah ay wuxuu naga haastaan waa gartay wuxuu dhul baaxad weyn ay haastaan marka waxa waaye waxaas waxa ku arkaysaa muga dhinaca ay ka guuraan u socdaan koonfurta u socdaan waqooyigana waa ka socdaan waa gartay wuxuu arkaya dhulka inta ka dhacay waa dhisan yihiin waa magaalo dhamo guurayso dabaqyalaho maraayadalaho adiga masaajidalaho geedalaho baarar laho siima loo wax walba ay leeyihiin adiga dadkii dhacow yiri mootooyin hataa la qaatay wixii dhow lagu yiri dad wuxuu yiri waxaanaba soo bilaqaysanayna aadayna wax weli la arkaba ma aha dadna marka dadna salaadii iyo waxba ugu markay waaba la yaabiyo salaadii oo aadaba waxa iga warantaa magaalo guuraysa ma dhulka ayay ku socotay ma koro meel sare ku socotay ma meel dhaxa say u aragteen adiga mesela hadda roob markuu daa ma madoobo si wanaagsan waxaanu saymo roob oo socda amala u qabtaa waa guri cirkana ka dhisan dhulkana ka dhisan oo socda dhinaca koonfurta ma kormiyo ku socda marka diyaarad oo kale ma cirku ku socoyaa mise mijawi hoose sidee u socda waa socdaan waxaas saadaal cirka iyo dhulka inta ka dhaxaysa ay ku socdaan dhinaca waqooyiga ay ka socdaan dhinaca koonfurtana badaaba ka hayso biyaha ku ka furanba imise qof baa ku aragteen ma dad yar mise dad badan ku aragnay macallimiintii dugsiga iyo waxaas hadda wax walba macallimiinta iyo kutaabta geeday fuulaan waa la fiirina ummadii xoolihii oo raacda waxay leedahay guryo reeber guryaa laga kor dhisay adiga dad badanaba xalay guri hadda soo weydiin ta dhiitaga hore u xabaaba waxa weli la arkaan bal maqlama ma waxa arkaysaan dhismo oo kaliya mise dad bini aadan xoolo wax waad arkaysaan maya wax bini aadan ama nafle ma arag laakiin guryahan oo daaqad u furan yihiin oo marna qaar rinji cusub oo fuulo qaar maraayada yihiin qaar dahab yihiin masaajidka ugu dambeeya dhinaca waqooyiga soo xiga daba socda marka xagee ku qiyaasteen ma dhul magaalada gudaheeda ama hiiraan gudaheeda ayaa lagu qiyaasaa dhismahaas iyo deegaankaas guuriyaa tilmaamaysaa mise meel kale oo idinkaga yimaas leedahay oo idin soo dulmaray maya dad banaanka hoose jiray oo degmada Jalalaqsi inta naga jiray xagayna u soo fiirsheen ayuu ka hortana soo wacay guryaha dhisan oo dhagax oo bari ka muuqda ayina niri wixii hadii la fiiriyo anaka dhinaca qorraxsinkay naga hayo tuulada qoryaale dhinaca galbeedka ay ka haasteen niyow maqribkuna waa soo dhawaay waxaas marka waxa maqaadir Ilaahay wateedo Ilaahay camiray dhinaca koonfurayna u dhamaadeen wixii dhinaca waqooyigeena kulay saadaashaas nooga timid waxaas muga kulay niya waxaan weli aragnay amba maartay dadka islaamka la tusama laakiin marka leedahay dhinaca waqooyiga u dhamaadeen degmooyin ma tilmaami kartaa jihada dhinacay jirta marka joogto Jalalaqsi degmooyinkii ku wajahanta hadda degmada Jalalaqsi waxay ka jirtaa dhinaca orax ka soo baxa anagu ugu aadana dhinaca orax ka soo baxa koonfurta oo baraandiriye hiiraan isaarkeeda anagu hadda jooga way marka waxaad ii sheegtaa wax kale oo baaritaan ma sameeyeen oo dadka ma waawacdeen dadaal kale oo deegaanada ka fog in ayaguna ay arkeen dibkan ama mashaqadan ama calaamadahan aad idinku aragteen iyo meeshii ugu dambeysay ee inta aad wacday ee ku sheegeen lagu arkay maya ana kaaniya awdaad oo kulay tuulada joogaan nahay arintaas waxaan ka geli karnaa quraanka rabbiga ay noqdeen quraankana waa ilaa xalay ilaa hadda weli waa lala fadhiyaa niyaa dadka kulay hiiraanna waa saaka iyo soo gaarsiinay wadamada kale dad naga soo waa jireen laakiin waxaaniya wax aan ku tilmaanta hadii aan ma jirin ay wax oo kulay mucjiso oo Ilaahay wateeyeen maasha saaba maaragta allii weynaa oo taaba ka agdhawaaniyo quraanka rabbiga tuulada aad joogtid meel aan ahayn ma laga arkay tuulo kale ma laga arkay magaalada gudaheeda heer hiiraan yaa kala arkay reer hiiraan maal lagu aadan oo la yiraa oomaad ma ahayno qatar oomaad niman jooga ayukuna jimaa goobta jooga dhinaca xagayna u soo fiirinayo oo soo bariga annaguna dhinaca galbeedka u fiirinay marka waa isla Jalalaqsi gudaheeda Soomaaliya aaga ay tilmaamayso
waa jallaqsi gudaheeda jallaqsi dhinaceeda koonfuro waayo oo dhul baaxad weyn waayo dhulkaas jalalaqsi degmo aan ahayn ma lagu arkay arrintan maya laguma arag laakiin anaka dhulka joogna waa kumaan kun oo dadaha aragtay oo maaragtay dadkii xaafadihii jooga guryaha jooga haatee guryahoodii xalay ay maaragtay ay ka carareen haatee waa qalqal kaliya ugu carareen waa garta marka sidee igu sawiri kartaa wixii aad aragta adigu tilmaamta siin karta guryahan horta iskifaallo caadi oo dhisan camalaa u qabtaa dabaqayahu waxa waa nooc walbay leeyihiin waa garta dhinacay maaragtay u dhammaanayaan biyo uga furan oo bad camalaa ka haysa waa gartay biyahaas waxa waa shucaac camal waa badaha waa taqaanaa shucaaca biyahaas ku furan guryahana gurya geeda ku dhex yaalaan oo camba ku dhex yaalaan oo haama ku dhex yaalaan oo adiga matooro ku dhex yaalaan oo nooc walbaa kuu soo baxaa mugga in yar joogtaba nooc kala kuu soo baxaa indhahana kuma hay kartiyo mugga yar fiirida indhaha xoogaa maraayada kaa taabanaysa marka intaa oo aad tilmaamahaas aad sheegaysid oo dhan aad arkaysay oo